السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا فيديو صديحات عشر كاني لبعض علم النفس. marka waxaan ka wadi doonaa meeshii aan ku dhameystirnay 10kii videogii labaad waana xeerka koobaad ee ganacsiga FX-ka iyo cilmiga nafsigiisa. marka laba xeer baa jirto, xeerkana waa xeerka koobaad. marka waa maxay xeerka koobaad? xeerka koobaad waxa waaye simply waa ka ganacso waxa aad aragto oo aad u jeedo ee ha u ganacsan sida aad u malaynayso. tan aad iyo aad muhiim tahay. marka waxaad ka ganacsataa sida suuqa u aragtid markii aad fiirinaysid shaxdada ama chat-kaaga si waxa aad u jeedid ku ganacso ee ha u ganacsan sida aad u malaynaysid ama maskaxdaada u malaynayso. qaabka aad u gasho suuqa ayaa laga yaabaa inuu si miyir la'aan ah ay maamusho aragtidaada, dareenkaaga iyo wax aad aaminsan tahay. qaybta maskaxda ee maamusho astaamahan waa maskaxda hoose ama waa hadda ay tusin doona waa waxa loo yaqaano hadda waxa ku sameysaan Google search reticular activating system. hadda ayaa idin tusinaya qaybtan reticular formation ama reticular activating system. marka waa maxay? waa kana meeshaan lagu soo qoray waa wax oo pencil camal qalin qora camal waaye. waxay ku taalaa maskaxda qaybta hoose ku taala waxaana laga heli karaa waa meesha spinal ama laf dhabarteena meesha maskaxda iyo laf dhabarta iska haystaan ayay ku taalaa oo laf dhabarta ayay ku dhagan tahay maskaxda qaybteeda hoose waaye. waana maskaxda informationka jirkaaga markii aragti ahaan indhaheena ama dhageheena wax markuu information jirkeena soo galo intaanan waxa walba arkin qaybtan waxay sameynaysaa waxa loo yaqaan filtration oo wax mararka qaarkood waxa rabtid bay ku tusinaysaa waxay ku xirantahay dareenkaaga iyo u fikraysid. marka haddii aad suuqa fiirinaysid waxa laga yaabaa wax aan meesha actually olin inaad fiirinaysid ama aragtid because of maskaxda, because of qaybtan loo yaqaan reticular formation ama reticular activating system. sawir hadda ka raadino aan aragno waa qaybtan way waatana meeshan laf dhabarta waa inta meesha. marka waa qaybta hoose maskaxda. marka hadda tusaale arba inaan tusiyo suuqa tusaale idin ka tusinaya waxa ka soo qaada inaad ka faa'iideysatay suuqa dhacitaanka ku baad waa euro dollar markii la jabiyay trend line kan 4 hour iyo 50 EMA waa la jabiyay suuqa dib ugu soo laabto waxa dhahdaa intaan ka galnay camal aniga ganacsiga maahan ganacsiga ka faa'iideystay midka ku xiga ka faa'iideystay laakiin waa tusinaya. marka waxa ka soo qaada u fikir inaad ganacsigan ka faa'iideysto inta gashay marka suuqa uu soo galay uu soo dhacay faa'iido badan aad ku socoto faa'iido badan. marka suuqa sa u jeedid wuxuu sameynayaa waa tilmaamuna tusinaya qaab qiimeeduna tusinaya inuu suuqa kala fireen doono. qaab qiimeedkan waa baran doontaa casharada soo socdo sa u jeedid. marka suuqa wuxuu tusinaya inuu kala fireen doono laakiin annaka maskaxdeena because faa'iido badan aan noo socoto faa'iidana waxa rabnaa inay noo sii socoto qaab qiimeedkan maba arkeenaba oo waa annakoo suuqa u jeedno oo fiirinano yaanan maskaxdeena si fiican u arkeenin. markaas maxaa dhacayo? waxa laga yaabaa faa'iidadeena aanan laq bixin oo suuqa uu soo kala firayo. taas kaliya maahan laba jeer ayaa qasaari kartaa. marka hore waa faa'iidadan inaad lacag badan suuqa u celisid suuqa lacag badan ku si inaad u celisid. marka labaad waxaad ka faa'iideysaneen qaab qiimeedkan oo fursad kala heshay taasna ma ka faa'iideysanayso. fursad kale tee waa tana suuqa sa u jeedno wuxuu jabiyay waxa loo yaqaan waa falling wedge waa arki doontaa waa baran doontaa wuu jabiyay dib ugu soo laabtay meesha fursadan ka faa'iideysan lahayd waxa kaliya rabtaa maskaxda waxa rabtaa inay ku tusiso suuqa iyo mar walba dhacay. marka hadda wuu jabiyay waxa arkaysaa shumcan guduudka arkaysaa shumcan guduud marka taxa isleeda uu kala fireen doonaa mid kale guduud uu kala fireen doonaa maya koru sii aaday markaas mid kale guduud aragta uu kala fireen doonaa uu soo dhacay mid gudeed waxa isleedahay faa'iidada hadda ii soo laabanaysa. marka haddii aad tahay ganacsada buuxo meelahana kala bixilaad markuu suuqa soo jabiyo falling wedge kan faa'iidada waa la bixilaad. laakiin dadka maxay sameynayaan way sugayaan suuqa uu kala fireenaya kana ma ka faa'iideysanayaan faa'iido badan way soo celinayaan. maxaa dhacayo markuu suuqa meelahan soo maray hadda ma ujeeda 5% bay sameeyeen ama risk ratio 5-1 markaas wuxuu ku soo laabanaa 5% ilaa iyo 1% iyo bar meelahaas. marka faa'iido badan baa suuqa u celin kartaa
because maskaxdaada iyo waxa maskaxdaada si u fikirayso iyo waxa arkayso waxaas dhan ma ka warqabtid. waa muhiim inaad la socotid waxaan, waa muhiim inaad mar walba sawirka guud aragtid, waa muhiim mar walba in aad ku ganacsatid waxa aad u jeedid ee aad u ganacsan sida u maleynaysid ama dareenkaaga siduu u maleynayo. marka taas aad iyo aad muhiim tahay ka socono. marka hadda muuqaalkan hoose fiiriya, haddaa fiiris muuqaalkan hoose dadka qaarkood maxay arkayaan gabar da'yar, dadka qaarkood maxay arkayaan waxay arkayaan habar weyn. marka laakiin xaqiiqada dhammaystiran ayaa ah in labadaba meesha laga arki karo. waa taas waa xaqiiqada dhammaystiran. laakiin xaqiiqada dhammaystiran waa soo koobis wax walboo jiro dhan. laakiin xaqiiqada kooban waa qaybta aan anaga aragno ee noo muuqato ee reticular activation systemkana qaybta maskaxda hoose ayna tusinayso oo noo ogolaanayso. marka qaybtan hoose waxay sameynaysaa maskaxdeena ama indheheena ama jirkeena dareen ahaan waxyaalo badan baa na soo gelayo aragti, waxyaalo badan baa arkayna, laakiin wax walba arkayna muhiim ma ahan. marka qaybtana waxay dooranaysaa waxyaalaha muhiimka u ah, waxayna ku xiran tahay sida dareenkeena yahay. marka waa muhiim inaan la soconno maskaxdeena, inaan wax walba arki karno, xaqiiqada dhammaystiran inaan arki karno, sawirka oo guud inaan arki karno. aad iyo aad muhiim u tahay. ka soconno xeerka labaad ee ganacsiga FX-ka iyo cilmu nafsigiisa. marka xeerka labaad waa maxay? xeerka labaad waa trade-ka wanaagsan ama ganacsiga wanaagsan had iyo jeer faa'iido ma sameeyo, oo trade-ka xun had iyo goor khasaaro ma keeno. tan aad iyo aad muhiim u tahay. marka maxaa kala saaro ganacsiga wanaagsan iyo ganacsiga xun? waxaa kala saaro waa sida tan. trade-ka wanaagsan waa trade u soo gashay adigoo oo raacaya qorshahaaga ganacsi. waa trade maareysay oo adigoo oo ku salaysan adigoo la jaan qaadayo qorshahaaga ganacsi. trade-ka xumi waa trade kasta oo aanan ahayn trade-ka wanaagsan. aad iyo aad muhiim u tahay inaad la socotaan sida aad u kala qeexi kartid ama sida aad u kala saari kartid ganacsiga xun iyo ganacsiga wanaagsan. ganacsiga wanaagsan mar walba waa ganacsi ku salaysan qorshahaaga ganacsi. ganacsiga xunna waa ganacsi wanaagsan, waa ganacsi aan ahayn mid wanaagsan, wax kale maaha. muhiimadda dhexdhexaadnimada aad iyo aad muhiim tahay inaad dhexdhexaad tahay. hal shay oo aad muhiim u ah inaad fahanto ka hor inta aadan bilaabin ganacsigaaga FX-ku waa muhiimadda dhexdhexaadnimada. waa inaad had iyo goor aad isku daydo inaad dhinac walba aad arki kartid markaad sameynayso falanqeyntaada suuqa. waa inaad dhinac walba arki kartid. haddaan kusoo laabano tusaalahan, markii aad falanqeyn sameysanaysid waa inaad arki kartid suuqa inuu kala fireen karo. aad iyo aad muhiim tahay inaad arki kartid. waa inaad arki kartid markuu hadda suuqa kor soo maro, xataa haddii aad ku jirtid ganacsi si fiican ku socdo, inuu suuqa soo kala fireen karo, inuu suuqa dib u soo dhici karo. waa inaad la socotid. hadda saa ujeedaan double top uu sameeyey, muxuuna tusinaa inuu suuqa soo dhici doono, wuu soo dhacayaa. haye maxaa kale? waa ujeedaan descending channel, tan maxayna tusinaa inuu suuqa kor u laabanayo. waa muhiim inaad mar walba labada dhinaca kale arki kartid, aanan ku xirneenna ganacsiga ku jirtid iyo faa'iidooyinka aad ka fikiraysa aysan ku xirneen. taas muhiim aad iyo aad u tahay. annaga oo ah bini aadamka waa qiiro badan nahay, shucuuraheena aad u badan yihiin. ujeedada ganacsiga FX-ka ma ahan in laga takhaluso shucuurta, laakiin waa inaad barato sida qaabka aad u wanaajin kartid, qaabka aad u maareyn kartid shucuurtaada. waa inaad baratid. ma ka takhalusi karno, mana shucuurteena bili aadan baan nahay. mar walba waa dareemeynaa hunguri, cabsi, waxaas oo dhan mar walba waa dareemeynaa. shucuuro kala duwan waa dareemeynaa, laakiin muhiimadda waxa waa inaad maareysid. muhiimadda waxa waa markii aad falanqeyntaada sameysanaysid in aad dhexdhexaad tahay, inaad sawirka guud arki kartid. aad iyo aad muhiim taas u tahay. dhexdhexaadnimada waa shay aad u baahan tahay inaad si fiican u barato si aad u noqoto ganacsade guuleysta, ganacsade dhammaystiran. dareemitaanka farxad xad dhaaf ah haddii aad sameysid ganacsi aad iyo aad u faa'iido badan, ama murugo sabab la'aana haddii khasaaro badan kusoo gaaro, tan waxay sabab u noqonaysaa, waxayna waxyeelo aad iyo aad u xun u keenaysaa natiijooyinkaaga ama meeshii aad ka gaari lahayd ganacsigan. marka
xataa haddii aad samaysid lacag aad iyo aad u badan waxaa muhiim ah inaad dhexdhexaad ahaatid, inaad deganaatid, inaad tahay qof degan. aad iyo aad muhiim u tahay. haddii uu kusoo gaaro qasaarooyin badan ilaa 10 jeer haddaa qasaar isku xigto, waa muhiim weli inaad dhexdhexaad ahaatid. waa muhiim inaad weli aad istiraatiijiyadaada raacdid oo aadan ka leexleexan. taas muhiim aad iyo aad u tahay. tanna waxay ka bedeli kartaa go-aan gaadhistaada, isla markaana kaa joojinaysaa fulinta xirfadaha ku habboon qorshahaaga. waa haddii aad dareemaysid farxad xad dhaaf ah ama murugo xad dhaaf ah. waa haddaad dareemaysid, waxay waxyeelo u yeelanaysaa qorshahaaga ganacsi, waxay waxyeelo u yeelanaysaa go-aan gaadhistaada. marka waa muhiim inaad mar walba la socotid dareenkaaga. waxaa kaloo rabaa inaad idinku tan ku daro, waxaa samaysaan qeyb samee, meel samee joornaalkaaga oo ku qoraysid sidaad dareemaysid. ganacsiga markaa maareynaysid sidee baad dareemaysay, markii aad ganacsiga galaysay sidee baad dareemaysay, markii aad ganacsiga ka baxaysay sidee baad dareemaysay. markii aad waxaanoo dhan aad record garaysid oo aad meel iskugu keentid, 3 biloodba dib u fiiri, waxaad arkaysaa waxaa hubaa mar walbo aad dareemaysay dhexdhexaad, calm, composed. mar walbo aad dareemaysay deganaasho. ganacsiyada aasaas dareemaysay inay noqon doonaan ganacsiyadaada ugu faa'iidada badan. taas waa waxaa hubo. haye hadda waxaan ka hadlaynaa labada shucuur oo aad iyo aad u geysto dhibaato walba oo soo gaara qof walbo ganacsada. waa hunguriga iyo cabsida. sidaan horey usoo sheegnay, kor u kaca iyo hoos u dhaca ganacsiga FX-ka ayaa ah sababaha ugu weyn ee ganacsatada u guuleysanin. mararka qaarna ay si buuxda uga niyad jabaanba ganacsiga oo dhanba. marka waxa aan ka wado waxa waaye kor u kaca iyo hoos u dhaca waa dakhligaaga. kor u kaca iyo hoos u dhaca ku imaada dakhligaaga because sababto ah waxaad ku jirtaa ganacsigaana kor u kac iyo hoos u dhac badan buu keenayaa. tan ayaa sababayso noqonaysana sababta ugu weyn ee dadka maskaxiyan ay dhib ay dareemayaan. cabsida iyo hungurinimada waxay wax yeelaan ganacsigaaga, khalkhalna geliyaan horumarkaaga ganacsada ahaan. marka mar walba waxaa muhiim ah inaad cabsi iyo hunguri iska soo reebtid. waxaa rabaa inaan idin siiyo qorshe yar, wax yar oo samayn kartid. waxaa soo qaadataa buug ganacsi markaa gelaysid ama aad ka baxaysid, ama waxaa qortaa hunguri iyo cabsi. waxaa qortaa sababtee hunguri u dareemaysaa, maxaa keenaya hungurigaa dareemaysid. maxaa keenaya cabsidaa dareemaysid, maxaa keenayo. markaa aragtid sababaha waxaan keenayo ayaa waxaa samayn kartaa, sababahaas ayaa sii fiirin kartaa, sababahaas sidee bay u imaanayaan. haddaa tusaale in sidiyo hunguriga waxaa keenayo badanaa dadka waxa u keena waxa waaye markay guul weyn keenaan, markay ganacsi faa'iido leh ay galaan. marka hunguri markaad dareentid sababtoo ah ganacsi faa'iido badan ayaa gaartay, waxaa samaysaa dib waxaa u fiirisaa joornaalkaaga, waxaa aragtaa marar khasaare kusoo gaareen. tan ayaa waxay sababaysaa hungurigaaga inuu yaraado, inaad dhexdhexaad xoogaa hoos usoo laabatid. haye cabsida badanaa maxaa keena, waa khasaaruhu ka imaada. markii dad khasaaro badan soo gaaraan, khasaaro markuu kusoo gaaro cabsi dareemaysid, waxaa samaysaa joornaalkaaga dib ugu laabo, waxaa fiirisaa marar aad dareemaysa, marar aad ganacsiyaal faa'iido leh aad qaadatay. markii aragtid ganacsiyaal faa'iido leh adoo qaatay, ama istiraatiijiyadaada ay faa'iido kuu keentay, markaas ayaa cabsida way yaraanaysaa. waxaad dareemaysaa ganacsigan inuusan ku salaysnayn hal ganacsiyo keliya ayaa dareemaysaa. marka tan yar waa tib yar, waa wax yar oo samayn kartaan. hungurigaaga iyo cabsida hadduu badan yahay, buug soo qaado ilaa 20 ilaa 50 sababood qor hunguri u dareemaysid ama cabsi u dareemaysid. insha Allah saas samee. waxaana hubaa inuu hungurigaaga iyo cabsidaada inay yaraanayso. marka aad tahay ganacsade FX, waxaad maqli doontaa erey loo yaqaano FOMO waa fear of missing out. waa cabsi laga qabo in wax faa'iido uu ku dhaafo. waa cabsi laga qabo in aad weydo faa'iido. tani waa
mid ku badan suuqyadan FX-ka iyo muxuu ahaa cryptocurrency iyo stock iyo waxyaalahan ganacsi suuqyadan way ku badan tahay fear of missing out cabsida laga qabo inaad muxuu ahaa faa'iido ku dhaafto cabsida laga qabo xataa adigoo ganacsi faa'iido leh ku jirtid inaad si fiican uga faa'iideysan cabsida laga qabo inaad qasaartid cabsida laga qabo inaad lacag lumisid waxaasoo dhan waa cabsiyaal iyo muxuu ahaa cabsiyo badbadan waaye mana fiicna inaad saad dareemaysa haddii aad karti u leedahay inaad maareyso dareenkaaga bini aadamnimo ahaan ee cabsida iyo hunguri weyninta inta aad ku jirto garaafyada iyo ganacsiga waxaad faa'iido weyn u leedahay inaad horumar wanaagsan ka gaarto suuqan FX-ka marka waxaa rabaa had iyo jeer inaad isha ku haysaa mar walba dareemaysa hunguri mar walba cabsi dareemaysid ama hunguri haddii aad cabsi iyo hunguri dareemaysid ganacsi ha gelin ilaa aad dhexdhexaad tahay ilaa cabsida iyo hunguriga uu kaa yaraado fear and greed waa sababaha ugu waaweyn hunguriga iyo cabsida ay dadka ku qasaaraan ganacsigan kaliya maahan ganacsi walba marka insha Allah waxaan rajeynaa inaad wax badan ka faa'iideen casharkan aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan casharadan idin la wadaago muhiimadeedu waxa waa inaad meel fiican gaartaan ganacsigan meel fiican ka gaartaan ka faa'iideysataan la socotaan reality-ga runta dhabta inaad la socotaan marka insha Allah tacaala notes badan qaata su'aalo comments-ka kusoo qorta cashar walba hoostiisa waa idinkaga soo jawaabeynaa WhatsApp group-ka kusoo qorta waa la idin caawinaya ardayda qaarkood meel fiican bay suuqan ka gaareen way idin caawinayaan istaraatiijiyaas way fahansan yihiin casharada badankood way fahansan yihiin aniga laftirkeyga waa idin caawinaya marka insha Allah tacaala khayr badan baa idin rajeynaya walaalayaal guuleysta ayaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaah